geeska Afrika oo maanta dhul ahaan dhaqaale ahaan iyo siyaasad bulsho ahaanba ku xiran dawladaha caalamka hogaamiya ayaguna doonayaan inay danahooda ka fushadaan gobolkan ayaynu maanta isweydiinaynaa dadyowgii ama qoomiyadihii qarniyo badan ku noolaa gobolkan ay ku soo dhaxmareen dagaalada joogtada ah ee ku salaysnaa diimaha dhul ballaadhsiga daaqsimaha beeraha awood matooxsiga iyo arrimo kale goorma ayay iyagu dhulkani soo degeen gaar ahaan goorma ayay Soomaalidu soo degtay geeska Afrika haddii aad nagu cusub tahay magacaygu waa Muxyidiin Cabdi waxaad igala socotaan juqraafi ee fadlan ku soo biir madalaha juqraafi ee YouTube Facebook iyo TikTok soo dhawow mar kale taariikhdii hore ee Soomaalida ee ka horreysay taariikhda qoran prehistory waxay Soomaalidu kala mid yihiin bini aadamka kale waana taariikh inta badan lagu ogaado baaritaan lagu sameeyo xagga aaladihii ay dadkii hore adeegsan jireen iyo baaritaanna lagu sameeyo lafa hore oo laga helo dhulka oo la qiyaasay xilligii dadkii hore halkaas ku noolaayeen waxaana baaritaanka noocaas lagu qiyaasaa xilligii meeshaas lagu noolaan jiray iyo qaabkii dadka halkaas degan ay u noolaayeen cilmigaas oo loo yaqaano archaeology baaritaanna lagu sameeyay taariikhdii hore waxay muujinayaan in geeska Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalidu degtay ay yihiin meelihii ugu horreeyay ee bani aadamku deganaayeen kana soo farcameen taariikhyahanno ayaa aaminsan in taariikhdii hore ee Soomaalida oo la ogaado ay dan u tahay bani aadamka oo dhan waayo waa dad aad u daaweyn gaar ahaan baaritaanna lagu sameeyay taariikhdii hore waxay muujiyeen in Soomaalidu ay yihiin dadka adduunka ugu faca weyn ee ku dhaqnaa geeska Afrika taasoo sharaf u ah inay yihiin dad taariikh fac weyn leh oo aanay ahayn dad shalay soo degay geeska Afrika laakiin nasiib darro taariikhdaasi waa laga qariyay Soomaalida sida laaska daawadu waa kitaabka Alle iyo axaadiista suubanuhu inoo sheegeen waa tii daad lagu qarqiyay qoomkii Alle diidyada ahaa ee reer Nuux waa tii dadkii iyo wixii koonka joogay oo dhani halaagsameen sida uu Alle inoo sheegay waxa badbaaday oo kaliya nabi Nuux iyo intii noola ahayd ee doonta la saareed Carabta Israa'iiliyiinta Afrikaanka Turkida Roomaaniyiinta Aasiyiinta iyo qoomiyadaha kale ee ku dhaqan dunida maanta waxa ay ka soo alkumeen ilma nabi Nuux Kushitig oo inagu ka mid nahayna waxa ay sheegeen inay ka soo farcameen kuna abtirsamaan Xaam bin Nuux sidaa darteed waxaa la rumaysan yahay in Xamaatigu ama Kushitigu ka soo farcameen Xaam bin Nuux dhulkeenna asalkii ahina ahaa galbeedka Aasiya kadibna aynu kala firirnay kalena aadnay dhulal kala duwan oo ku yaala qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika iyo waqooyiga Afrika sinta webiga Niil ee Masar ku yaala dad badan oo cilmi baarayaalihii waxay u arkaan in dadka ku hadla Afro-Aasiyaatiga oo keena Soomaaligu ku jiro ay ka soo farcameen galbeedka Aasiya kana yimaadeen halka 70,000 oo sano ka hor dadka sida aaminsan waxaa si gaar ah ugu badan culimada ku takhasustay cilmiga afafka Semeetiga iyo taariikhda Masaaridii hore waxa kale oo taageero aragtidani culimada archaeology-ga ee qaba malaawaalka ah in afaf waaweyn ay isku ballaadhiyeen dunida iyagoo wata iskuna hirgeliyay farsamadii beeraha ee kacaankii Neolithic halkaas oo la oran karo in beerashada casriga ahi markii ugu horreysay ay ka soo hanaqaaday galbeedka Aasiya dadkii ka soo bartayna ay gaarsiiyeen dunida inteeda kale qaar kale oo afyaqaano iyo taariikhyaqaanihi waxay qabaan in asalka dhuleed ee dadka ku hadla Afro-Aasiyaatiga oo Soomaalidana ku jirta oo ahaa Afrika gaar ahaan waqooyiga Afrika halkaasna ay uga soo guureen geeska Afrika sababta ay u qabaan aragtidani waxa weeye in halkaasi ay tahay xarun juqraafiyadeed ee afafkaas maanta ka jira iyo in halkaas ay ka muuqato kala duwanaanshihii ugu badnaa ee afafka Afro-Aasiyaatiga taasoo inta badan loo arko calaamad muujinaysa dhulkii hooyada ee luuqadahaas iyo dadyooga ku hadla afyahanno iyo hidda ururiyaal kale oo uu hormuud u yahay Igor Diakonoff waxay qabaan in asalka dhuleed ee dadka ku hadla Afro-Aasiyaatiga laga raadiyo saxaraha bari gaar ahaan hareeraha koonfureed ee lamadegaanka halkaasna ay ka soo guureen afyahan kale oo la yiraahdo Lionel Bender waxa uu soo jeediyay in dadkaasi ka soo guureen meel u dhow magaalada Khartoum ee Suudaan halka ay ku kulmaan webiyada Niilka buluuga ah iyo Niilka cad qoomiyadaha la isku yiraahdo Kushitig oo ay ka mid yihiin Soomaalida Oromada Beechaha Saaxada Canfarta Masayda Xabashida waxaa loo arkaa inay asal ahaan ka soo farcameen dad ku hadli jiray Afro-Aasiyatig oo ka yimid bariga dhexe yimidna buulaleyda Itoobiya 70,000 oo sano ka hor
cilmi baarisyada DNA-ga casriga ah waxay muujiyeen in dadkii hore ee Homo sapiensku ay ka soo guureen bariga dhexe una soo guureen bariga Afrika gaar ahaan Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ilaa 60,000 sano ka hor. Sidaa darteed dadka Kushitiga oo loo nisbeeyay Xamaatiga taariikhda Islaamka waxay ku xiran yihiin dhaqdhaqaaqyadaas hore oo isku darka dadka ka yimid bariga dhexe kuna nool Afrika.